munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay dhismaha waddo isku xidhi doonta degmada Yubbe iyo deegaanka xeebta ee Galweeta ayaa lagu qabtay magaalada Cerigabo waxa munaasabada soo abaabulay mudiga dhalinyarada Beelweynta Garab Sare munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen madax dhaqameed waayeel qurba joog aqoon-yahan haween iyo marti sharaf tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay faahfaahin ka bixiyay muhiimadda munaasabadan leedahay qaar ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabisay xafladan shirkaygan wuxuu daaran yahay horumarinta deegaanka waxaana soo abaabulay Beelweynta Garab Sare dhalinyarada Beelweynta Garab Sare oo gobolka Sanaag ugu horeyn wadada waxaan u baahanahay maadaama aanu nahay beeshii inaan shaacino wadadaasina waxay faa'iido weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waana wax mashruuc loo baahan yahay inaad dhammaantiin aad ka qayb qaadataan oo mashruuc khayriya shirkayga kale waxaan iyaga laftarkeeda kaga hadlaynaa shaacinta kadib horumarinta deegaanka uu ka mid yahay xaalufinta deegaanada waa mowduuc muhiim ah oo u baahanahay inaan iyagana meesha kaga hadalno sida gubida dhirta la gubayo iyo deegaanada la xaalufinayo waxaanu kaloona mashruuca kan uu guud noogu yahay wadada dhismaheedu noogu guda jira isbitaalka guud ee degmada Yubbe isaga laftarkiisana waa mashruuc aan rabno laftarkeeda inaan iyadan halkan aanu abaabulkeedana ka sii bilowno aad iyo aad baad mas'uul sharaftiin horta u mahadsantihiin waxaanuna jecelahay Beelweynta Garab Sare mashruuca ay ku baaqday dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay kala qayb qaataan gaar ahaan Beelweynta Harti aad iyo aad baan wadadana iyadana ugu baahanay inaad nagala qayb qaadataan ilaa iyo deegaanka Galweeto markii aanu aragnay baahida loo qabo wadada oo aanu aragnay reer kasta inay u tashadeen deegaankoodii iyo meesha ay u dhasheen ayaanu waxana soo qaaday caadifad yar oo ah in aanu deegaankayga wax ka qabano maadaama aan nahay dhalinyaradii gobolka ee deegaanka wax u baratay maxay ahaydeen waana waddo tabarucaad oo fiican oo khayriya ah sadaqad tijaariyada weeyaan boosaska ugu waaweyn ee bini'aadanku ay baxsadaan ama wax la gashto dadna waxaanu nahay dhalinyaro la soo baxday emotional aad u fiican dareenkooda aad u sareeyo maxay ahaydeen raba inay dalkooda wax u qabtaan insha Allah wixii awoodeeda ah annaga kaligeena wax ma qaban karno waxa lagu tiirsan yahay nin walba dividend wuxuu ku yahay dadkiisa iminka cidna dawlado badanaa wax kama hesho laakiin dadku waxay wax ku horumar ku gaaraan marka ay yahay dad isu tashaday maxay ahaydeen isku tiirsan maxay ahaydeen wax urursan kara maxay ahayd weeyaan iminka Soomaaliya nin wal reer walba deegaankoodii iyaga dhistay oo horumar gaarsiiyay marka anaga waxaan nahay dhalinyarada waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo dhalinyarada tabarucaadkeeda ka qayb qaadanaysa ayaanu soo dhaweynaynaa maxay ahaydeen waana arintaan isugu nimi iminkana intaas ay ahayd waxa kale jira kaabayaal dhaqaale oo looga baahan yahay deegaanka sida caafimaadka in la horumariyo maxay ahaydeen caafimaadka in la horumariyo in isbitaal ka Yubbe horumarintiisa la sameeyo madashan waxay daaran tahay waad wada ogtihiin waa wadada isku xidhaysa degmada Yubbe ilaa iyo deegaanka Galweete ahmiyadda wadadu leedahayna dib ka wada baraarugsan tihiin horumar haday noqoto dhanka dhaqaalaha haday noqoto shaqo abuur haday noqoto oo deegaanka oo dhalinyarada shaqo fiican ka helayso wadooyinka inta badan waxay ka mid yihiin horumarinada deegaanada oo wadooyinka inta badan lagaga qayb qaato deegaanka annaga ka injineer ahaan oo soo dhaweynaynaa wax kasta oo annaga naqsayna diyaar baan u nahay wadaduna markii koobaad ma aha oo sarfooyin hore oo wadada laga qaaday way jirtay iminkana diyaar baan u nahay inaan wadada inta karaanka iyaga aan ka qayb qaadano soo dhaweyno aan wadada inta sarfooyinka iyo aday annaga khibradayada noqoto baan kaga qayb qaadano waxa iyaguna madashaasi ka hadlay waayeel wax garad qurba joog haween kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay wadadan dhalinyarada isxilqaantay si gaar ah ayaan u salaamayaa meeshan inagu kulmiyay qodobka ugu horeeya waxa weeye waa dhiirigelinta aan dhalinyarada dhiirigelinayo oo aan yaqiinsanahay aniga oo aan odhanayn bari iyo saa dambe dhacaysa
haddii la leeyahay dulqaadkeeda iyo sabirkeeda oo waxa la doonayo iyo masaafadu intay dheeraran tahay iyo culaysyada ka hor imanaya dhallinyaradu ay maskaxda ku hayso oo arrintaa ay si wanaagsan mid ay uga soo baaraandegeen ay tahay waana qabaa inay uga soo baaraandegeen waxaa taa iga yeedhinaya aqoonta iyo shaqada qaarkood ay waayo aragnimo u leeyihiin iyo dhulka oo aanay laftiisa dee dadkii deegaanka ka yimi inay ka warhayaan culaysku intuu leegyahay intaa oo dhan marka la isku daro waxaan garanayaa inaanay mooganayn hawshu intay la eg tahay haddii hawshaasi marka ay hesho marka waxaa la yidhaha commitment go-aan iyo casiimad aan ka soo noqod lahayn waan hubaa in wakhtigu ha dheeraado culaysku ha bato wixii doonayo caqabada ha timaado in wax laga gaadhayo waan hubaa markaasi waa iga dhiirigelin dhallinyarada nimanka sideenoo kale u mahmaaha ayaa waxay yidhaahaan marka ay jirto isku kalsooni dariiq lama waayo la maro when there is a will there is a way dariiqad la maraa waa furan tahay marka casiimadaadu nooshahay dhallinyarada intaa ayaan leeyahay waxaan ugu darayaa maadaama saan uga soo sheekeeyey hawshu ay culaysyada leedahay deg deg umaynaan baahnin waxaan u baahannahay inaad cid walba sidaa aad galabta u dadaasheen galabta waa daahfurkii inay kelmadda tan iyo farriintan cid walba gaadho muhiim idiin ah hadday aqoon tahay iyo hadday waayo aragnimo tahay iyo haddii nin waayeeloo loo soo hogto tahay iyo hablaheenna waaweynoo hooyooyinkii hawsha aan ka daalin ee meel mari ay tahay waxaa u baahan tihiin community fara badan dadkaa inaad qalbigooda hanataan ayaa buurta aan arkay aada ugu badheeri kartaan taa idinka gaar baan idiin leeyahay intaa waxaan ku darayaa nin hindi horta waxaanba aanaba idinba aydaanba u niyad jabin oo la odhan jiray manjhi ayaa la odhan jiray marka bariga indiya ayuu ku noolaa meel ka mid a tuulo yar buu ku noolaa tuulada yar waa go'doon buurtaasoo kala xidhay laakiin tuulooyinka horumarsan ee dhakhtar kale ee iskuulkali waa sii fogayo isagoo buurtaasay kala gooyaan 22 sannadood ayuu maalinba dhagax rogaayay ilaa uu dariiq ka furay tuuladiisa saboolka ahayd iyo qolyaha ladan jidkii la isu mari lahaa uu furay marka tanoo kaleeto aan hore la isugu dayin maahoo taariikho badan oo saa usoo dhigan bay leedahay inta yaree backgroundka iyo taariikhda ee aan ku daraya dhallinyarada maanta hawshaa wadaa qaarkood iyagoon dhalan ayaa ummaddu diriimka iyo hawadaa daba joogtay ilaahay jannadii ha geeyey rag badan oo maanta aan halka joogin oo geeriyooday baan xusuustaa oo debadaha ayaa waxaa noogu yimi cajlad laga soo duubay waxaa ka mid ahaa odaydaali jibriil waxaa ka mid ahaa ismaaciil cabdi xasan ismaaciil daabul oo gacantiisa ku naqshadeeyey maabkii iyo jidkii la mari lahaa debadaha markuu maabkaasi yimi waxaa loo qaatay nimanka khabiirada ah ee maababka gacanta ku naqshaday yaqaanaa inay sameeyeen halkudhagii ismaaciil waxa uu ahaa maalmaha cajladaasi ay meelaha debadda noogu timi war indhaa dhaama dadka debaddu la hadlayo nala arka waxaanu samaynay bay ahayd jidka markay mareen xoolihii la ururiyey iyo geelii la ururiyey iyo kuruskiisii ayaa dhagaxa qaarkii balaaqolo khubaraa baa u sheegto waxa la waa la gubaayo dabeedna kuruskaa iyo baruurta iyo badhidaa intay dul dhigaan bay dab ku qabtaan markuu dhaguxu gubtana waa la garaacayay markaasuu kala daadanayay qalab lama haysanin dhowr shay oo jack hammers ay ka mid yihiin ayaa lagu shaqaynayay maanta waqtigii waa ka duwan yahay dhallinyaro experience-ka kan iyo waayo aragnimadan iyo fiilka kan engineering kale ayaa jooga waxaan qabaa arrintu inay ka hawl yaraanayso hawadii la dayn waayey ee waaga aydan dhalan soo dheraraydna aad idinku ka midho dhalin doontaan rag tashaday dhul waa toli karaa taaka labadeed buu yidhi odaygii jiray meeshaan waxaa la isaga baahan yahay go'aan hadday qurba joog tahay iyo hadday qolqol joog tahay caantaynkeenaasaynu isu geynaynaa shucuubta soomaaliyeed ee meel walba joogtana waa walaalaheena waa kaashanaynaa
waxyaabaha noocan oo kaleeta ah waddada isbitaalka iskuulka waa wax aan la kala lahayn weeye waddada caawa deegaanka reer yube ayay ka timi oo abaabulka ka wado waddada samaysanayaa la leeyahay laakiin cid mari doonta garan mayno mid ayuubeba u dhalan in halkaa inta dani ku karkarto dabeedna jiduu soo maraba uu waayo haddii maanta la yidhaahdo war shilinkaaga yar ku darso way la adag tahay oo goormaan u baahanayaa baa qof badani odhan karaa laakiin meelaynu cagta dhigi doonno isma naqaan taa daraaddeed baan loo kala lahayn waddada waa soo dhowaynaynaa diyaarna waa u nahay talo iyo dhaqaale iyo xoog iyo xikmad intaba diyaar baan u nahay ta labaad waxaan leenahay hadal badan uma baahnaa waxay u baahan tahay ficil waxay u baahan tahay ku dhiirasho waxay ku baahan tahay dhabar adayg loo dhabar adaygo waxay u baahan tahay hiil walaal bay u baahan tahay maantana waxa meesha la isugu yeedhay waa hiil walaal waxa weeyaan hiil walaalku xabadda keliya oo la rido maaha hiil walaalku waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha oo la iska garabsado waayo waddadu waa shayga ugu muhiimsan ee nolosha qofkay ka mid tahay cid kasta oo muxsina oo wax ku darsanaysa qabiil male qabyaalad male qoys male waddada waa la wadaagaa waxyaalaha ummadda ka dhaxeeya oo ummaddu ay wadaagto bay ka mid yihiin waayo waddada ceergaabo iyo burca hadda isku xidhaa nin waliba waa intifaacsadaa laakiinse haddii isha qabyaaladda lagu eego waxaa la odhan lahaa reer sheekh isxaaq bay dhex martaa waxba iskaga dari maayo waxba ku bahalkeyn maayo talaxumaday ka mid tahay waddada waa la wadaagaa waa la wada leeyahay waddadaa aad soo qaadeenna waa waddada ugu muhiimsan oo ay mandaqadeennu u baahan tahay weeye yubba uma baahna waxaa u baahan mandaqadan reer sanaag ama soomaali oo dhan baa u baahan waana muhiim weeyaan marka aynu ku guulaysanno oo aynu daluulinno oo aynu xeebta u ridno waxay la tahay meel walba waa gaadhaysaa laami baynu ka dhigi doonnaa waxaan leeyahay soo dhowaada khayr allah idin siiyo in allaale iyo intii ka soo qayb gashana waa uga mahad celinaynaa bulshaweyntan halka isugu timi reer ceergaabo iyo arrimahan khayriga ah waddada ee laga hadlayo waxaan aad u bogaadinayaa dhallinyarada soo abaabushay wakhtiga u hurtay tacabka gelisay inay maanta halka isugu keento marka hore ilaahay baa mahad leh qodobkan laga hadlayo waddada iyo muhiimadda ay leedahay waxaan u malaynayaa qof waliba waa ka dheregsan yahay waxayna u baahan tahay in guud ahaan reer sanaag ay u kacaan si ay hawshan ballaaran ay uga midho dhaliyaan mashruucan waddadu ma aha mid sahlan ma aha mid ay dad kooban ay wax ka qaban karaan waxay u baahan tahay in guud ahaan bulshada gobolka iyo khaas ahaan degmada ceergaabo ay ka qayb qaataan iyada oo ay qof walba oo mandaqadan degan ay ugu jirto ay dan weyni ugu jirto marka waa bogaadinayaa annagu fariinta aanu gudbinaynaa haddaanu nahay qurba joog waa waxa sawirkaanu maanta idinka aragno oo u muuqda inaad tihiin dad u heelan inay wax ka qabtaan deegaamadooda marka waa bogaadintaas iyo farxaddaas iyo daafurkaas aynu maanta isugu nimi ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inoo hirgeliyo hawsha meesha taallaanay waa hawshaas culayska badan leh marka waxaan baraarujinayaa oo annaguna aanu fariintaas gudbinaynaa in qof walba oo majuura oo jecel khayrka inuu ka qayb qaato runtii waa la wada fahmay mashruuca halkan aynu galabta kulankiisa isugu nimi oo dadkii hadlay oo dhan ayaa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda uu leeyahay iyo waxa laga doonayo iyo ku talagalku sida uu yahay runtii aniguna waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu shaacinayo dhismaha waddada isku xidha yube iyo geelweyta waa shaacin waa hawl bilowgeed runtii dhallinyarada soo abaabushay oo
khaasatan dhallinyarada garab sare malaha waxay ku jiraan booskii jamaahiirta waa jamaahiirtii istilaaxaadkaas innagaa iska leh waa jamaahiirtii horumarka iyo waxqabsiga isku tashiga ayaynu leenahay jamaahiirta malaha waxaa loo yaqaanay qolyaha dagaalada iyo waxa dagaalka abaabulay laakiin jamaahiirtani waa tii horumarka iyo isku tashiga iyo waxqabsiga sidaa laga wada dhawaajiyey hawshani waa hawl runtii baaxad leh hawl sahlan maaha waxay mudnayd munaasabad intan ka ballaadhan oo ka culus in loo qabto waana loo qaban doonaa bay la tahay marka ay daahfurka gaadho ganacsatada in laga soo qaybgeliyo waayeelka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qurba joogta intaaba qani baynu ka nahay waxay ahayd in xafladda dad culus oo maaragtay messajkan qaadan kara gudbin kara inaynu maaragtay ku xasilno insha allahu waana socon doontaa bay la tahay tani waa bilow waxaan dhallinyarada ku boorinayaa hawshaas ay furaha u yihiin in aanay ka daalin ee ay dabada haystaan inaad u samaysaan arrin walba nin kale baa dabada qabsada oo dabagala oo runtii dee waxa u qabsoomaya iyo baahidiisa isagaa u galgasha waxaan ku talin lahaa in waayeel iyo maxaanku la sameeyo guddi u shaqaysa waddada oo waayeel leh oo ganacsato leh oo dibad iyo guda isku xidhan oo dhallinyaradu hormuud u tahay sida haddaba ay u hindiseen oo fundraising loo ururiyo maxaa yeelay infrastructureka waxa la yidhaahdo ama bunya taxtiya oo waddooyinku ka mid yihiin oo dekeduhu ka mid yihiin waa wax ummadda oo dhammi ay ku intifaaci doonto oo maaragtay aan la kala xigin weeyaan marka cid kasta oo muxsiniina muslimiin ah ama cidday doontaba ha ahaatee wax la baxaysa waxaan ku boorinaynaa oo halka fariin uga diraynaa inay wax ku darsadaan sidaa la sheegay cid mari doonta ilaah baa yaqaana laakiin waxa weeye waa wax aakhiro kuu jira oo ajarkeeda iyo intifaaceeda aad yeelan doontid mashruuca kan la soo bandhigay oo ah waddada yuba galweyto ilaa xeeb oo degaanku ay samaysanayaan dhallinyarada juhdiga faraha badan ku bixisay hawsha tan oo la sheegay aada iyo aad baan iyagana u bogaadinayaa dadaal fara badan bay sameeyeen mashaariicda caynkaasi daa'iman waxaana ka maarmin wax la yidhahdo daraasad waxa weeyaan mashruuca kani waa mashruuc horumarineed wuxuu ka mid yahay mashaariicda la yidhaahdo infrastructureka oo bulshada iyo dowladuhuba ka faa'iidaystaan meesha buur baa ku gudban dahabkii baa yaal baddii baa taal mashaariicdan horumarintaa ku dhan beerihii baa yaal kalluunkii baa yaal tijaaradii baa taalla oo commercialkii ilaa wholesaleka import iyo export waxna dhoofinaya waxna soo rogaya ayaa ka faa'iidaysan doona danyartaa ka faa'iidaysan doonta kuwa retailerska ahee dukaamada yaryar haysta ee jeebrayaasha waxaasoo dhan ayaa ka faa'iidaysan doona mar weeye waa mashruuc khayriya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambaleynayaa dhallinyarada mashruucan ka soo shaqaysay waxaan leeyahay jazaaka allahu khayr wahuwa jazaa ilaahay ha idinka siiyo ajar iyo xasanaad waddadu runtii sidaa waxgaradkii iyo odayaashii iga horreeyey ay ka soo hadleen iyaga ayaan la qabaa waddaduna dee cidda ay muhiim u tahay waa cid kasta dad iyo bahal wax kastoo maraya iyo xoolo iyo maxaanku idhaahay muhiim bay u tahay in waddo la helaana waa shay aada u muhiima xasanaadkeeda iyo ajarkeedana way leedahay dee diinta waad garanaysaa waddadu waxa ay ka qabto marka insha allah aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba usoo dhaweynayaa waddada marka la leeyahay yuba geeldoora iyo xeeb la leeyahay maaha intaa keliya inay waddo u tahay waa meesha ay ka bilaabmayso sidaan u fahmay laakiin mandaqad ama waddan ballaadhan ayay waxay u tahay halbowle u tahay iyo muhiim in waddadaasu ay noqoto waddo furan
oo shaqaysa marka insha allah mar labaad iyo mar saddexaadba dadka waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysano in waddada cid kasta oo saka bixinaysa iyo cid sadaqada bixinaysa iyo cid ilaahay hortii wax ula baxaysaaba waa meel ay ku baxayso oo muhiim u tahay runtii dee dadku nin masaajid dhisay iyo nin waddo sameeyey labaduba xasanaadkeeda ay leeyihiin marka insha allah waa soo dhowaynaynaa hiil iyo hooba waa la garab taagannahay insha allah ganacsate ahaana waxaan rajaynayaa inaanu idinku taakulayno sakada oo kale aanu idinku maxaanku idhaahay dhallinyarada aanu idinku garab istaagno wixii sadaqa kale ciddii kale muxsin ee sadaqa ku darsanaysaana way u furan tahay marka insha allah waan idin la shaqaynaynaa waana idinla garab taagannahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaydin idinna hanjaamin shalay bay ahayd cergaaba inaanay waddo lahayn oo gaadhigu 3 maalmood u soo socdo maantana gaadhigii ka soo baxay 800 kilomitir hargeysa ah inuu ku yimaado 8 saacadood oo ilaahay fadligii insha allah tanna waxaan rajaynaynaa inay iyaduna la mid noqoto oo aan uga faa'iidaysan doono insha allah wax kastoo wanaaga wax kastoo horumara iyo wax kastoo maxaanku idhaahay bulshada mandaqada ku nooli ay u baahan tahay ciddii maaragtay jidka qodaxda ka leexisa ajar weyn bay ka helashaa waana wax qaali ah arrintan aynu isu kaalmaysanaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan weeye macnaha wixii maaragtay hagaagsan ama wanaagsan isu kaashada baa la yidhi marka aqoon-yahankii baa ka soo hadlay odayaashii baa ka hadlay waxgaradkii dhammaan sidaa ay u sheegeen waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala xafladda xigta iyadoo wax weyn la qabtay oo haddii allaba kuu roon yahay buurta wax weyn laga qabtay baynu insha allahu tacaala rajaynaynaa waxay yidhaahdaan qolyahan wax eegaa hadda waxaa jirta caqabad dhinaca buurta ah oo jidkii caqabad ku ah aqoon iyo ficil la isku daray bay waxay yidhaahdaan musiibay barwaaqo u beddeshaa wax musiibo ahaa ayay barwaaqo u beddeshaa marka dhallinyaradan hawshan ay soo qabanqaabiyeen berri ka maalin waxaa la arkayaa halkaas oo furantay idan ilaahay dhammaanteenna waxaan ku wada haminaynaa iyadoo kalluunkii la helay oo haddii allaba kuu roon yahay wax allaale wixii yaalay gobolkan sanaag ama guud ahaanba soomaali inay ka faa'iidaysato waa meel taariikh dheer leh geelweyte waxaan u malaynayaa wakti bay ahayd caasimadu ahayd dhulka soomaalidu ay hadda sheegato ama ay degan tahay oo dhan waktigii 1634 bay gubatay Portugiis baana gubay iyadoo magaalo weyna oo magaalo xadaaradeeda meesha aad aragteen geelweyte waxay ahaan jirtay hadda anigu ma tegin laakiin taariikhda sida lagu sheego marsay ahaan jirtay marso waa dhul marso ahaan u diyaarsan waa dhul waxa weeyaan hodan ku ah kalluumaysiga marka meesha inay naga xanibnaato waxa weeyaan waxaan u malaynayaa inay khalad tahay sahanka waxaan u malaynayaa taariikh dheer oo hadda dee jiil to jiil generation to generation ay soo kala dhexlayeen himilada sida ay u kala dhexlayeen Chinese-ka nimanka la yada Belt Road-ka hadda ay adduunka hadda ay ku wadaan baa wadada in la toosiyana loo kala dhexlayay hadda waxaan arkayay 3 generation oo hadda generationku waxa weeyaan 25 baa lagu qiimeeyay hadda markii boqolaalka sano ma aha waxa weeyaan 25 sano waxa weeyaan waa generation in hadda 3 generation fikirkani ku jiray halka ay taagan yihiin oo shirarkooda ay ka qayb galeen baa waxay tahay wax weyn oo waxa weeyaan lagu diirsado maanta aynu itaal roonahay technology-gii iyo caqligii iyo cududiina aynu haynaa siyaasiyan iyo tacab ahaanna aynu ugu noolnahay waxaan aaminsanahay waqtiga ugu habboonaa caqligii iyo taladii iyo afkaar ahaanba inay maanta tahay maanta tan sida sharafteeda looga soo howlgalay waxa laga hadlayana wadada khayraayiga ay tahay iyada waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa intii odayaashii ka soo hadleen baan la qabaa wadadana sidaan u ogahay
anigu waxaan aaminsanahay sida ugu quruxda badan ama ugu qiimo badan inay si dhakhsale haddii ilaahay ka raali noqdo inay arrinteedu u fulayso waayo cabsida anigu waxaan ka ogahay oo u warhayaa meelaha ay joogto iyo inta laga soo qabtay iyo halaha ay taagan tahay waxaan leeyahay dhiiri badan iyo in weliba aragti badan laga qaato inaanu injineero badan iyo dad badan ka qayb gelinno aragtideeda nalala arko sidaa insha Allah baan ku soo dhaweynayaa wadada galweyto iyo isku xidhayso ilaa inta laga sheekeeyay meesha la yiraahdo Yube yiri maanta waxay ahayd toolay waanu u babacdhigaynaa waxaan leeyahay waa geesinimo iyo haliyeynimo geesinimaduna waxaad geesinimada ugu dhaqaaqdidna guuldarre kama keentid waan idin hambalyeynaya horta waxaan leeyahay hambaliyada kadib ha u biqina wadada ceergaabi iyo burco isku xidhaba dad baa lahaa ma dhamaanayso inkastoo idinku aad maxay ahayd toolay idin dawlad ahayno taa dawladi dhistay misnaba shacabku waa dawlad shacabku markuu awoodiisa iyo xuduudiisa isticmaalo oo maskax fiyoon iyo maxay ahayd toolay aqli fiyoon keeno waa dawlad waxaan aad idinka hambaliyeynayaa horumarka iyo khayrka aad ka shaqeynaysaan aad ku dhiiri gelinaysaan wadada quruxda badan oo cid waliba maxay manfacaadkeedii anfaceeda yeelanayso aan biri idinka gaar idin noqonayn laakiin taariikhdeeda aad ku suntanaanaysaan aniga farxad gaar ay tahay waa reerabtigay wadadii ka soo jeeday oo maanta la bilaabayo runtii farxad gaar ay tahay si gaar aan u hambalyeynaya insha Allah qaadhanka dadka ugu horeeyo ka qayb qaadan doona noqonaya maanta waa igu soo kad islaamaha markay buraan wax xiran jireen way igu soo kadisay oo ka iskaba filayn marka mar kale idin igu soo kadin ayaan idin ka qayb qaadanaya cid kasta oo gobolkan Sanaag degan wadadani wawdan cid kasta oo gobolada kale degan wawdan wadadu umada isku xidhaa waxa weeye inay cid waliba ka qayb qaadato hanka la timaadeen iyo himilada way idin la barbar taaganay waa halka xaaway qaadhanka waxaanu ka dooraynaa anagu dhulbaantaan hadalka u maraynaa waxaanu leenahay dhexda ha loo xidho dhulbaanta afkiisa baanu ku hadlaynaa way joogaan odayaashii waxaynu qaadnay xujada waynu wadada aynu ku yeelanaa rool weyn waayo wadada ceerigaabo ee maanta halka lagu naaloonayo dumarkii u horeeyay bixiye dhagaxa ayaanu ahayn waxaanu doonaynaa dumarka u horeeyay dhagax dhiga inaanu noqono aad iyo aad baan idin salaamaya waxa weeye aad baan u soo dhaweynayaa wadaduna maanta waaba kala baranto waxay taagan tahay ilinta hadday taagan tahayna wax badan inooma hadhin ha lagu dhiirado ha la bixiyo waa halka saynaba koonadna ha la soo dhajo $1 haddii habeen walba lagu ridana waa buuxsamaysaa waa $1 wax kale iska daa mid guri joogto iyo mid suuq joogto iyo mid meel walba maraya $1 hadday ku rido wax badan bay taraysaa ha la soo badiyaa koomada baan idin leeyahay waxa weeye hadalkeedii wadada iyo shaacinteedii iyo hadda la korreeyay wuu dhamaaday cid kasteena farxad bay ku soo dhaweynaysaa wadadani ma aha wada Sanaag leedahay qurihi ma aha wada qabiil waxa weeye wada Soomaaliyeed qorshaha lagu soo dhigay bay ku tahay wada Soomaaliyeed ilaa Kismaayo ilaa Raas Casa ilaa Raas Kabooni waa wada u furan cid kastana waxay u tahay daw toosan oo tirita ah oo ilaahay ku beegay wadka barihiisa wadanka sida darteed waxaan leenahay wadadaas cid kasta ka qayb qaadato Allah waxa loo soo dhigay in la ogeysiyo dadka oo loo shaaciyo nin kasta oo horumar jecel nin kasta oo doonaya inuu maslaxad gaadho maslaxad badan bay buurtaasina ku gudban tahay waxa kamid ah maydig iyo fooxii waxa kamid ah kalluunkii waxa kamid ah beerihii waxa kamid ah togagii burqanayo biyo ka rogmanayeen oo wax ka naafacsada inta oo dhan bay ku fadhidaa iyo in ka sii badan xoolo daaqeenkii dhulkii nasabka ahaa ee xeebaha xoolo daaqi jireen ee aan xoolaha dadka la mid ahaan jirin dirtii daawada ahayd mudaawiga ahayd wax kasta oo macdan oo Ilaahay adduunyada keenay iyo dahabkii ayaa dhex jiifa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guurti Saciid Maxamuud Ismaaciil iyo Boqor Ibraahim Maxamed Xasan daafurka kan ee wadada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa raggii ka hadlay hablihii dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhallinyaradii maskaxdeeda tuujisay oo iyana xafladan qabatay oo ka soo shaqaysay annaga odayaal ahaan ma ogeyn xaaytay noo yimaadeenoo noo sheegeen hawshooda iyagaa watay markaa waanu ku ayidnay si fiican baanu ugu ayidnay aad iyo aad baanu ugu ducaynaynaa waana u mahadnaqaynaa intaa markaan ka baxo waddadu horta sideedaba waa 50 kilomitir 50 kilomitir weeye waddadu 25 kilomitir waa samaysan tahay
shan iyo labaatanka samaysan raggii bilaabay oo sameeyey maanta waxaa ka nool oo haa ka fadhiya cumar axmed muuse maxamed abukor ibraahim maxamed xasan iyo aniga afartaasaanu ardayda ma joogaa intiina dhallinyarada hadda hawsha bilowday maba dhalanay waxayna ahayd 93gii bay ahayd 93 bay ahayd ragga iyagaasaa bilaabay maalintii aanu bilownay oo yubbe ka abaabulaynay waxa la ahaa macquul ma aha arrintanu socon mayso gaadhi baanu 2 foosta ku qaadanno saar meesha leeya waddadu ka bilaabato baanu dhigannay raggii adhiga ugu horreeye keenay oo aanu maalintii ka cunnay cumarkaasaa ka mid ah iyo maxamed abukor caawa iyagiina waa fadhiyaan halkaasaanu waddada ka bilownay 25 kilomitir baa dhammaaday oo hadda baabuurtu tagtaa inta hadhay waxaanba u malaynayaa inay tahay 21 waa laagga markii la istaago ilaa xeebta inta hadhay waa intaa meesha aan u maaran weynay oo dhadhaabta nagu noqotana waa laagga markii laagga la dhaafona waxa weeye inta ka hoosaysaa gacantaa lagu samaynaya wax dhibaato oo ay leedahay ma jirto meesha loo caalwaaye waa laagga oo dhadhaabta ah oo hadda waddadu ay taagan tahay waxaa loo daahfuray inaynu inana ka hawlgallo dadka walaalaheenna u sheegno inayna ka taageeraan markaa waxaan codsanaynaa dhammaan waddadu hadday ka dhaadhacdo reer yubbe ma leh ummadda af soomaaliyeed oo dhan baa maraysa waddadaa in kala hawlgalo annana faa'iidaa noogu jirta dadka kale oo marayana faa'iidaa ku jirta waayo waa xeebtii ama deked ha laga sameeyo ama kalluun ha laga gurto dhaqaalaa dadka ka soo gelaya aad iyo aad waxaan u jecellahay inta maqasho xafladdayadan inay waddadaa nagu taageertaan ka codsanaynaa dhammaantood inta kale waxaan halka uga mahadcelinaynaa dhallinyaradii soo abaabushay hadday tahay inamada iyo hadday tahay hablaha iyo ciddii ka qayb gashay aad iyo aad baan halka u mahadcelinaynaa waxaanu leenahay laa shukri cala alwaajib waa wax idinku waajaba haddeerna waxaa weeye dadkan waa la waayeeloobay mustaqbalkeeda waddada waxaa leh dhallinyaradiinna iyo wixii idinka sii dambeeya sidii aad qofku markuu waayeeloobo way iska caajisaa idinkoo aan cidna ku hadlaynayn cidna isu daba taagayn waa inay idin hawlgasaan oo shaqaysaan oo waddada inoo dhaadhicisaan dhallinyarada kale oo soomaaliyeedna saa u soo dhoweyn lahaydeen ama dhaqaale uga heli lahaydeen idinka idiin taallaa odayaasha ka soo qayb galay oo haddeer master cali bushaale iyo de waxaan u malaynayaa waddadaasaa kuu xeeba saad kalluunka uga soo guran lahayd dhaqaalahana u bixin lahayd waddadan ayaa ah waddo muhiim u ah guud ahaanba gobolka Sanaag iyo deegaanada Soomaalidu degto waa Sakariye Maxamed Cawad warbaahinta Roora Media Production magaalada Ceerigaabo.